kalfadhigii 3 ee golaha wasiirada Somaliland oo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Somaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Zaylici ayaa kalfadhigaasi waxa warbixin laga dhigaystay wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda, horumarinta beeraha, horumarinta biyaha. ugu horeyn wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa golaha warbixin ka siiyay arrimaha dhaqaalaha dalka isagoo wasiirku isbarbardhig ku sameeyay 3 biloodkii sanadkii hore bishii koowaad ilaa bishii saddexaad ee sanadkii 2018 iyo 3 biloodka sanadkan 2019 ee bilaha koowaad ilaa bilaha saddexaad wuxuuna isdultaagay wasiirku isbedelka sanadkani ku yimid arrimaha dhoofka iyo soo dejinta oo aad uga sareeya waqtigan marka la barbardhigo 3 biloodkii sanadkii tagay waxa kale oo wasiirku uu xusay inuu hoos u dhac weyn ku yimid arrimaha sixir bararka oo isbedel balaaran laga gaaray marka la eego sanadkii hore bishii saddexaad oo uu ahaa 18.9% halka sanadkan bishan saddexaad ka ahaa 7.0% waxaana wasiirku iftiimiyay in dakhliga 3 biloodka bisha koowaad ilaa bisha saddexaad ee sanadkan 2019 uu sameeyay kor u kac gaadhaya 43% marka la barbar dhigo 3 biloodkii bishii koowaad ilaa bishii saddexaad ee sanadkii 2018 dhinaca kale goluhu waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Mudane Axmed Muumin Seed oo sharaxay xaaladda roob yaraanta ee sanadkan iyo dib u dhac ku iman doona wax beerista dalagyadii loo qorsheeyay inay ku baxaan roobabkii la filayay inay ku da'aan waqtigii la sugayay sanadkan waxaanu xusay wasiirku inay xoog saari doonaan beerista midhaha ku baxaya waqtiga kooban sida qamandiga galeyda iyo wixii la mid ah sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Mudane Salebaan Cali Koore ayaa golaha u aqriyay warbixin la xidhiidha safar uu dhawaan ku soo maray qaar ka mid ah gobolada bariga waxaanu wasiirku ku dheeraaday biyo yaraan soo food saartay dadka iyo duunyada ku dhaqan gobolada Sool, Zanaag iyo Saraar iyo baahiyaha ay qabaan inay helaan biyo ku filan waqtigan. Idruus Maxamed Axmed, Ariel TV, Hargeysa.